لكن أنا بعرض لنا مسنة الحمد لله سمعنا هنوراتهم haddii aanu nahay anagu Soomaaliland gaar ahaan gobolkan Gabiley ma doonano xamar ma doonano farmaajo ma doonano wixii sheegta dabadhilifku ha dhaco ninka doonaya ha guuro dad baa guura dalma guura hana dhaafaan calanka yagaasaanu ku qanacsanahay tawxiidku ku qoran yahay la ku qoran tahay dooni mayna Soomaaliya mana rabno farmaajiya dadkiisa wixii sheegta waan nacnay laakiin madaxweyne waxaan ku sheeganaa inaad naga raafto dadka qaxootiga ah ee dalka iyaga jooga ubadka imika daldalanaya xadayana waxaanu ka codsananaa inaad naga raafto muwaadiniintu isku soo hadhaan kaan muwaadin ahayn hana laga saaro hana laga kaxeeyo gala baxayaan magaaladii oo way soo wada degeen oo way naga soo buuxsameen halkaasay ka marayaan waxay nagu yiraahdaan toban baan ku dhalo guuri mayna nagu yiraahdaan ma rabno mar Somaliland ha noolaato Somaliland ha guulaysato Somaliland ha guulaysato cadawgeedu ha jabo Somaliland ha noolaato madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi ha noolaado madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ha noolaado annagu calanka Soomaaliya dooni mayno iyo wixii sheeganaya toona dooni mayno annagu calanka tawxiid kalaana xukuma annagu kaasaan ku daadanana annagu kaasaan ku hoos dhalanay annagu kaasaanu garanana calan buluuga iyo wax meelaha lala meeraysto dooni mayno cida doonaysana ayada u tagto cida doonaysana ayada u tagto naga mid maaha kaasaanu xukumaana calanka tawxiid kale waxaan leeyahay farmaajana ha u soo hiloobin annaga halkan xukuna madaxweyne qaran baan leenahay baarlamaan qaran baan leenahay guurti qaran baan leenahay golayaal deegaan qaran baan leenahay ciidan qaran baan leenahay nidaam dawladeed oo toosan baan leenahay hanagu soo absaami farmaajoy hanagu soo absaami adeero allahu akbar Somaliland ha noolaato cadawgeedu ha jabo Somaliland ha noolaato cadawgeedu ha jabo farmaajo jabaan leenahay madaxweynaha Muuse Biixi waxaan halkan hambalyo uga dirayaa aad iyo aad u qaali ah aniga oo metelaya ganacsatada gobolka Gabiley waxaan leenahay madaxweyne jiro joog waxaan nahay dawlad jirta oo 30 jirsatay maadaama aan nahay maanta 30 jir uma baahnin cid kale innaga isku filan ninka nagu soo socda ee leh isagoo oo metelaya magaca Soomaali lahaa ma shalayto kaado ma ka samaynayna Somaliland Saudiyaaru ma inaan difaacno horaba waynu difaacnay maantana waan difaacnaa quraashay ku quuso farmaajoy ku quuso xarmaajoy ku quuso marka koobaad waxaan leeyahay dhowrkan qof ee cisho walba calan yaro la cararayo buluuga waxaan leenahay daamba dalka ka guura oo Soomaaliya ka tashada oo Somaliland ka guura ama da calanka Soomaaliya la cararaysaan inaga daayay baan leeyahay saxaaftan la cararaysa maalin walba haddii kale xadhigaasi waa ku joogtaa qof wala calanka lagu arko waa qof maalin walba la xidhi doono oo jeelka waliba imika sanada la xukumi doona 6 bilood bad barateene saddex sana la xukumi doona insha Allah anaguna wax ma ogelin calan buluugana la dhaxarara tiim lagu sameeyay ayaan iloobayn
waxaan sheegayaa oon dadweynahan u sheegayaa oon kuwa aqliga Allah aynu sheegayaa xun yahay xun ku dhalay na Allah baa dhalay dameer baa bukhasiisay ilaahu hanagu soo celin xun yahay xun ku dhalay na Allah baa dhalay dameer baa bukhasiisay wax lagu hadla miyay tahay wax bilaadan ku hadla miyay tahay waxaasi afkoogu ahaa af Soomaaligood waxaasoo ahaa ilaahay naguma soo celiyo waxaan leeyahay Soomaaliland waa qaran jira Soomaaliland waa muqaddis calan yar oo ciyaal loo soo dhiibayna waxba ma yeeli karo waxbana kama qaadi karo waxaan leenahay cadawga Soomaaliland ha dhaco Soomaalilandna ha jirto ha joogto waxa jira Soomaaliland dad 30 jirsaday oo maalintay dhasheen nabad ku dhashay nabadna ku taagan oo qoriyo dagaal garanayn waxaan leeyahay ciyaalada yaryar ee calamada loo soo dhiibay waalidkooda ka dambeeyana iska toobadkeen oo ciidin iyo calankiina iyo dadkiina idin jecel iska aamina kii aan aaminsanayn guriga waa laga iibsanaa xamar ha iska tago cid alla cidii tagasa guriga waa laga iibsanaa xamar rabta marka waxaan leeyahay dad aan waxa jira wax loo soo maray aan arkayn oo garanayn baa jira waxaan leeyahay loo sheego carruurta runta aad baan u mahadsan yihiin dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasto ay joogaan aad calanka Soomaaliya loo soo dhiibay ee lagu soo qalday ee waxba garanayn ee hadda 30 jirsanaya ee waxay hayaan jirin waxaan leeyahay ardada yaryarna hal la saamaxo aynu dar Ilaahay ku saamaxno walaalayaal reeboor mana waxaan ka digayaa in calanka ay iska daayaan